السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي أصحابتي إذا قالية قيمة إشرفت بدن كسر وهذا القناة كان عايش لايف ستايل. هذا كو عصب تاي سبسكرايب صار هذا سي جوجي درتوا ما هتصنتهاي شكرا أن كله صدق الحوام يسعر يا أصحابي. كان كيني مانكو أصحابي أسكر أسمع سؤال أصحابي سرنك كده بدها صاحبي لكم فيديو دو هذا يسعر فيه برافون كان مسوق هذا أنا ما أدري هقول أساس وده فيديو ما لقى أركع كيني مانكو أركته مركز صحابي فيديو برافون لقى عارفيها وماي marka saxabteeda qaaliga soo dhawaada hadad ku cusubta soo kaftan haduu maqlan dib marahan kulay inta doiga daawad igaraal maqsaxibo marka saxabteeda qaaliga soo dhawaada channelkeena ku soo dhawaada subscribe saara like saara share da brian aisha life style ya naga ismahayno waa idin xiisin dadkayga tiinaan jeclahay mugtahay aad iyo aad idin kugu xiiso waxa idin leeyahay mar walba waqtiga idin wacnaad meel walba joogtiin caafimaad qab ku joogo dirajinaya waxa idin la asxaab maanta waxa idin wada tala ee ila soo wadaagta gabruulaashan ee wixii tircaasho wixii tala ay iga siin lahayd ee tusaale ah waa yaani aniga wixii tala xaggayga horta waa ka sii laakiin wixii tir waxa rabaa in asxaabtaada inay tala iga siiyaan ee la taliyaan ee kullee waxa laga yaabaa dhahday qof fiican oo fikir fiican ama asxaabtaada fikradooda waxa laga yaabaa inaan qaato markaas waxaan idin la asxaabay gabadhaas la soo talay insha Allah fiidiyooga marka daawatid dhamayso fiidiyooga qaymo leeyahay waxa laga yaabaa inaad wax ka fahantid waxa laga yaabaa sheekada ka hor aragtay inay kugu soo dhacday markaas fiidiyooga waa inaad ilaa dhamaadka daawataa maahan asxaabteeda sheekada sid ula socotid meesha ee leedahay meesha u socota iyo meesha ay ka socota saw ogaatiin hadda waana kana waxay dhahday gabadha asxaabteeda waxaan ku dhaxogaanayaa la soo cayn qofka mugta markuu tala uu kula soo wadaago uu ku dhax asxaabtaada waxa rabaa inay ila taliyaan waxa la rabaa dhulka in iska qaadiin oo cirkaas isgeysiina la rabaa maahan qofka niyad in lagu rido ma fiicno wixii tala oo awoodid walaalkaaga waa la talin kartaa welcome waxaan ku leenahay ku soo dhawow gacmo furan marka asxaabteeda qaaliga hadda sheekada noo bilaabo waxay tiri ani gabar aan ahay gabar yaani gabar ma ahan waa hadda waa xaas la qabo laakiin awal hatta intaan la guursan ka hor waxay ahayd hooyo oo ilmiheysto meeqa caruur ay haysatay waxay haysatay 5 caruur ay ugu dhahdaa ninka hadda isqabno waxaan u dhalay dhahday 2 cunug 2 caruur haduu dhalay 5 hore igu joogeen dhahday 5 hore igu joogaan dhahday ninka hadda ee isqabaan islaama nool yaani wadan fog iyo wadan fog kala fog yihiin xogaa laakiin uu yimaada sanadkii ama 2 sano ama 3 sano uu hal mar yimaada ay ugu dhahday waxay dhahday asxaabay waxay dhahday waxa fikir iyo stress iyo murug igu hayso 5 cunug oo dhalay 5 cunug oo dhalay uma sheegin ay dhahday ma oga ninka qabo oo 2 caruur aan haayo wiilay gabar aan haayo ugu dhahday waxay dhahday ma oge dhahday muxuu ogeen 5 caruur ma ogo wuxuu igu guursaday tiri inaan garoob ahay marka hore oo yaani garoob aan ilmo soo dhalin aan ahay uu igu guursaday dhahday anina xogaa qof iska xogaa weyn ah dhahday ninka oo hadda qabo yaani waa ka weynahay asaga waa ka weynay dhahday wiil yar waa asaga oo hadda guur ugu horeeyay asaga guur ana igu horeysay dhahday guur ugu guursadaba ana yaani ana igu horeeyay dhahday hore guur kale umuusan soo marin naag kale umuusan soo guursan marka asxaabteeda qaaliga waxay dhahday 5 caruur haystaa 5teeda caruur awal waxa ii haysay tiri habariyarteena ama eedadii ii haysay dhahday marka hore intaan is guursan ka hor markaan is guursanay kadib asaga wuu baxay markuu baxay ana ilmaheyga waan soo watay waxaan keensaday guriga waxaan deganay tiri guri weyn xogaa maasha Allah ani ilmaha nagu filan oo macquul ah aan deganay dhahday ilmaheyga waxa ay bartaan wax barashadooda waxooda maasha Allah adi cunug iigu weyn dhahday waxa waaye 17 jir 18 jir gabar iigu weyn dhahday 18 sano meelahaas hadda jirta ay tiri laakiin ninkii qabo ma ogeey dhahday ilmahan ina aan dhalay 5 caruur ah ma ogeey dhahday inaan dhalay laakiin asxaabteeda waxay tiri maro hadda ka hor inta hadda ilmaha keensada hal mar yimaadi waxay dhahday ilmihii inta aruuriyay
waxaan geeyay ilmihii waxaan inta aruuriya waxaan geeyay guri kale u kireeyay aan gabar oo shaqaale aan qabtay yani guriga ka shaqeyso ilmaha cuntada u karisa aan guriga kira ka dhiibay dhahday sidaas yani markuu imaanay saas aan isku dibray dhahday inta 2 bilood 3 bilood intuu jooga ilmaha gurigaas ay deganaanayaan dhahday kadib markuu asaga baxa waa soo celinay guriga ku soo celinaya markaas waxay dhahday asxaabteeda qaariga ninkan inta waxaa jooga familkiisa familka oo wiilka inta joogan waxay dhahday way yimaadaan ilmaha ayaa ku dhalay bismillah aad hadda dhow leeb lagu guursaday laba cunug leeb haysatay maxaa ilmaha guri weyn maxaa u degan tahay asaga waxay tir guri weyn deganaha uu qaracsan yahay ma sha Allah waxay dhahday horta biil fiican oo isiiyay dhahday oo yani nolosheeda ku filan nolosh ilmaheyga ku filan anaga dhan nagu filan dhahday oo isiiya laakiin ha isiiyo muxume waxay tiri ilmihi waxa igu mashquulan tir familkiisi waxay ran ilmaha waxaan ku dhahay tirani hawariye asaga xataa loo sheegay dhahday waxa la ahayn xaaskaaga ilmo 5 caruur miya oo cunug u weyn oo qangaar yahay guriga u joogo mana qaano waxay yihiin ilmo badan waa xoogaa 5 gaarayaan maxaa aad ilmaha dadoo inaa koriso maarta laba cunug le meeshas ku leedahay maxay taa ilmahan kale inaa koriso maarta bas isagu isoo ciitira baayse waxa u jiraan waxa sal ii sheegay waxa la igu dhahay inay ciyaal oo 5 ilmood oo qofku weyn gabar weyn ee tahay oo 18 jir camal guriga joogaan la igu dhahay si wax u jiraan heblaayo dhahay tir markuu si dhahay tir waxaan dhahay tir anina walaalo ilmaha habaryaraan waa ilmaha leena loogu dacuunaya walaashii oo meel hebel ku maqan ilmaha dhashay saasa la igu keenay ilmaha dalay keen habaryarno aanu ahay meel cidlan geenaya waa may adahaynaysid bas asaga aad iga qanacsan yahay dhahday reerkoodina asagoo u sheegay markuu la hadlo xudaa ilmaha habaryar u taayada ma dhalin dadku waxay iiga shakisan yihiin tire ina aniga dhalay cidooda waxay iiga shakisan yihiin ilmaha ina aniga dhalay ninkan ma u sheegin ilmaha ina aniga dhalay dhahday markaas xabteeda qaaliga wallahi waa sheeko aan la yaabo markay iiga sheekaysay waxay dhahday markaas cid ka soo tag ninka ka soo tag dadka waa qanciimahana waxay tiri nafsadeeda ya qancina dhahday marka nafsadeeda stresska igu haayaan maxaa ilmaha u sheegan weyse maxaa u dhihi weyse 5 caruur hore u haysta ninna hore usoo kala tagnay maxaa u dhihi weyse tan kale waxay tiri hadaan ilaa xataa hal aaba 5 caruur hal aaba ma ahan 5 aaba kala dhaleen dhahday caruurtan 5 aaba kala dhaleen dhahday waa 5 taya 5 aaba kala dhaleen dhahday markaas waxay dhahday walaal stresskaas ay haysta waxay tiri xanuun cudur inuu ugu dhacaa u dhowahay stresska zaaidka ah reerka ninka waa ka qarinaya ilmaheyga waxay tiri sida la rabo ma u haysan kara ninka markuu imaado meel kale dejinaya hadda waxay tiri haduu iimaado hadda uu maqlo walaashii arshaan ku dhahay leeynaan yani waa loo xareynaya sasay ku baxana hadda ninka ku dhahay caasho walaal asxaabtaada waxaan rabaa bal tala fiican inay siiyaan tala tan dhaanto oo hadda ani aan sameeyay wax ka fiican hadii og yihiin waxa laga yaabaa qof yani dadka isku mid ma ahan mahano waxa laga yaabaa inay tala fiican siiyaan waxaan rabaa inaa ila wadaagtid arintan igu dhahday asxaabta ku xiran Aisha Lifestyle marka asxaabteeda qaaliga runtii anigu waxay ugu noqotaan ku dhahay arin la yaab leh waxay ugu noqotay waa la yaabay aniga waa la tiriyay kulay idinkan waxa laga yaabaa wax tala laakiin ana waxaan ku dhihi lahaa hortan Aisha ahaan waxaan ku dhihi lahaa ilmahaaga adiga dhalay maysan heen ha hada ka weyn tahay muhiim ah inaa qofka ka weyn tahay muhiim ahaan taas labada qof waxa muhiim ah inay isku qanacsan yihiin waxa muhiim ah inay labadooda isku faraxsan yihiin koo marka shukaansanayso ilmaan dhal maxaa ilma aad dhashay inta u qarinay bismillaah waxaan dhalo leeyahay jeexma qarin kara oo dhihi kara ma dhalin taas abrafaad kale markaas hadda maanta stresskan ku haysta iyo sidaan u murugoon lahayd hada u sheegilay hal mar ama uu kugu guursan lahaa ama uu ka tagi lahaa labadaas mid just labadaas leemid uu soo gali lahaa ma ahane inuu maanta stresskan ku haysta aad inuu dhiikar kugu dhici rabo oo mar walba oo cidood markay ku yimaadaan aad dhan iska dhigta hawar yar ilmahaaga hooyo u tahay asas dhahdid oo xooga iska fogeysid runtii ilmahaasna waxay la taani oqdad nafsi inay qaadayaan maysan heen oqdad nafsiga ku dhacayso hooyadii markay dad u yimaadaan haday dhahays ana hooyo muu ihi waxaan u ahay hawar yar aan ahay waree hawar yar idin ahday hooyada ku dhahays oqdad ma ku dhiman oqdad ma ku dhiman wallahi bismillaahir rahmaanir rahiim laakiin walaalahay waxaan ku dhihi lahaa ina hadda inta dhowdahay wali iska sheegtida kuuroon inta stress kuna walaalayd meeqa ayo ilmaheesta la qabaa
ceeb ma ahan ilmaha hore usoo dhashay nolol asaga ka horeysana dhib ma lahan marka asxaabteeda qaaliga waxaan ku dhihi waxaa yacni anu waxaan dhihi lahaa Caaisha ahaan ilmahaaga inaad iska sheegtid oo dhahdo walaalo ilmahan anaa dhalay niman shan ma sheegtee 10 usoo dhala daartid waa usoo dhalay inaad dhahdaa la rabaa maahan inaa ilmahaaga qarisidoo dhahda ani ma dhalin habaraa u ahay ninkiina habaraa u ahay hay dadka dariskana habaraa u ahay maa ku dhahe ilan dariska haddaa u sheegtid waxay dhahayaan qaraabadiisa ma joogto waa loo geenayaa bal ani waxaan ku dhihi lahaa ilmahaaga inaa asaga la fariisatid muhiimadda waa asaga qaraabo waxba kaama gelin cid kale waxba kaama gelin asaga haddaa isku qanacsantihiin ama uu kaa taga ama uu kugu qaba qof marka horeba ilmahaaga kugu nacayayna faa'iido maba la ag jooginba markaas ilaahan ka magan galnay miskiinta ilaah iidana ha u fududeeyo waxaa idin leeyahay asxaabe waxaa idin leeyahay lasoo taliyahay abaayo stress walaa waxay tiri inaan waashto oon dharka ka dhex baxa dharka aan xiranahay inaan ka dhex baxo wax yar iiga dhiman ay dhahday asxaabe wax yar iiga dhiman dharka xiranahay inaan ka dhex baxay dhahday bal idinkana la soo taliya walaalahan isku waalan waxaas adduunyo waa caadi waaye beenta aa sheegta le kaa daba imaada hadda mahano hadda ilmo maa dhashahaa meeqa intaas aa iska dhileed maanta stresskan ma qabi lahayn cilaankan ana isku barbarta igaraal noqdo asxaabteeda qaanay cilaan barbarashaan ku jiray ana isku bartay saasaan isku sarsaaray maaragtaa sida meel dooro ku ciyaarta camal ay u eg tahay igaraal noqdo gacanta da aragtiina is dhahdeen bismillaahi saan ma cilaan loogu saar camal marka asxaabteeda qaaliga waa idin jeclahay meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan kuwo badan oo kalena waa idin soo wada oo la yaab leh runtii waxaa idin leeyahay channelka subscribe ha la dhaha share ha la dhaha like ha la dhaha comment qurux badan abaayaha laga soo bixiyo kulay ayadana kulay way daawan doontaa videogan saasi oo la soconaysa videoga markaad hoosas usoo dhac waxay tiri waa la soconaya soo asxaabta waxay dhahayaan aan rabaa inaan ogaado kulay waa wacaya insha Allah inaan caaw soo gelinayna waan u sheegay videoga marka asxaabteeda qaaliga waxaa idin leeyahay waqtiga ha idin wacnaado insha Allah isku soo laabad waxaan Caaisha lifestyle soo laabtay waatana idin la joogtaa